isku soo noqod wanaagsan saaxiibayaal meel walba joogtaan magacayga waa khaliiji asxaabta ku xiran pagekayga facebooka hore waxaan uu sheegay in aan gebi ahaanba joojiyey casharada fukshanka ama lesson gaari wadista laakiin dhalinyaro badan haddii lasoo xiriireen awgooda waxaan dib u bilaabay casharadani fukshanka ama leysonka gaari wadista hore waxay nagu okeed casharka sideedaad maanta waxaan kasii wadeynaa casharka sideedaad oo micnihiisa yahay geschwindigkeit und abstand geschwindigkeit oo ah xawaaraha iyo abstand oo asigana sidoo kale ah spaceka ama masaafada haddii aan ku dhufto wuxuu usii kala baxayaa 5 qeybood qeybta koowaad oo ah umweltschonende Fahrweise ina gaariga u wadid si deegaanka saaxiibtinimo u leh sidoo kale tood geschwindigkeit xawaaraha abstand ayadan sidoo kale tood spaceka ama masaafada uu ku jiro gaariga ka horeeya Fahrbahn und Witterungsverhältnis sidoo kale tood sida aa ugula macaamili lahayd xaaladaha wadooyinka iyo sidoo kale tood xaaladaha jawiga markaas marka meesha ka jira Warnzeichen oo ayadan sidoo kale tood micnaheedu yahay calaamadaha digniinta ayadan sa ugula macaamili lahayd qaybta koowaad ayaan ku dhuftay sidoo kale tood waa ujeediin su-aasha koowaad waxay ka kooban tahay 4 dhibcood wuxuu ku leeyahay was führt häufiger zu schweren Unfällen wuxuu ku leeyahay maxaa inta badan hogaamiya shilal halis ah inay dhacaan qaybta koowaad wuxuu ku leeyahay einfahren mit so geringerem Abstand adigoo gaariga ku kaxinaysid space yar ama masaafo yar oo u dhexeeya gaariga ka horeeya qaybta xigta wuxuu ku leeyahay unangepasste Geschwindigkeit xawaare aadan ka taxadirin ein mangelhaft Beobachtung des Verkehrs kormeer liita ee dhanka trafikada ama markaa baabuurta markaa meesha maraysa adigoo san saaid ugu taxadirin marka wuxuu ku leeyahay teeba saxe marka wuxuu ku leeyahay maxaa sababa shilalka inta badan halista ah qaybta koowaad waa sax wuxuu ku leeyahay waxaa sababa in so geringerem Abstand gaari ka horeeya in space yar ama xawaare yar oo ku jiro ayada way sababi kartaa uu ku leeyahay maxaa yeelay markii gaariga hoosta ugu jirtid waxaa laga yaabaa in oo gaari ka horeeya break qabto ama gaari kasii hore inuu break qabto asiga break kala qabto kadibna adigoo xawaare saaid ah ku socdo gaari ka horeeya ku dhacdid iyo sidoo kale tood ein unangepasste Geschwindigkeit xawaare aadan ka taxadirin haddii tusaale ahaan meel aa maraysid oo 30 lagu socdo oo adiga aadan xawaaraha ku socto aadan fiirnin oo aad ku socotid 50 ama 60 waxaa laga yaabaa gaariga ka hore inuu 30 ku socdo adigana markaa xoog u socdo ka bacdi aad ku dhacdid gaariga marka adiga ka hore iyo qaybta u dambeysa oo ah ein mangelhaft Beobachtung des Verkehrs taxadir yar oo aad ka taxadiraysid baabuurta meesha ka jirta adoo iska socto waxaa laga yaabaa gaari kale oo xoog u socdo inuu geeskaada kasoo baxo adoo isdhays dhinacan kale u bedelo in gaariga markaa adiga oo kugu dhufto marka ayadan waxaa kaloo sababaysa ku leeyahay in taxadir la-aanta ama taxadirka yar ee ka jira trafikada ama meesha baabuurta marka ay marayaan marka saddexdoodaba waa wada sax su-aasha labaad sidoo kale waxay ka kooban tahay 4 dhibcood wuxuu ku leeyahay was müssen Sie bei der Wahl Ihrer Geschwindigkeit berücksichtigen maxay tahay in aad ka taxadirtid markii aad xawaaraha dooranaysid qaybta koowaad wuxuu ku leeyahay Fahrbahnzustand und Verkehrsverhältnis xaaladda markaa laamiga ee tahay iyo sidoo kale baabuurta markaas meesha maraya xaaladdu sidee tahay Sicht und Wetterverhältnis wuxuu ku leeyahay aragga marka aragga inaa waxa ka hore arki kartid iyo sidoo kale tood dhanka jawiga haddii oo roob da-ayo haddii caryaamo jirto iyo wax kale tood la mid ah iyo sidoo kale tood persönliche Fähigkeit in adiga kartidaada adiga in tusaale ahaan haddii oo laami yar yahay in awooddaada ama aqoontaada ay ku geyn karto meeshan yarka inaa adiga ka dhex bixi kartid marka ayadan wuxuu ku leeyahay teeba saxe marka in adiga aad dooratid xawaaraha aad ku soconaysid waxaa ka badaa in aad adiga dooranaysid inaa gaariga 30 ku wadi kartid inaa 40 ku wadid inaa 50 ku wadid inaa 100 ku wadid adiga sa u dooranaysid waxay ku xiran tahay uu ku leeyahay Fahrbahnzustand und Verkehrsverhältnis qaybta koowaad waa sax oo waxay ku xiran tahay baabuurta markaa meesha maraysa iyo laamiga sida uu yahay iyo waxay ku xiran tahay iyo baabuurta badan meesha joogto sidoo kale tood waxay ku xiran tahay uu ku leeyahay Sicht und Wetterverhältnis waa sax maxaa yeelay aragga gaariga ka horeeya inaad si fiican u arki kartid inaad si fiican u arki karin haddii calyaamo jirto tusaale ahaan oo kale tood gaariga ka horeeya waxaa kugu adag in aad aragtid inta uu ku jiro iyo haddii oo roob da-ay oo kaletood ama baraf oo da-ay oo kaletood ayadana waxay kugu aaminaysaa inta aad ku caninaysaa maxaa yeelay ayadoo laamiga baraf yaalo gaariga kuma kaxinaysid 120 ama 130 ama 100 kuma kaxinaysid oo waxaa isleedahay barafkan inuu dhibaato ku keenaa oo tartiiba u soconaysaa marka
aragga iyo jawiga marka meesha ka jira waxay ku xiran tahay uu ku leeyahay sida xawaaraha u dooranaysid. iyo sidoo kale persönliche Fähigkeit haddii oo meel dhismo ka socda kale tusaale ahaan laamiyada waa lasoo yareynayaa in aqoontaada ay ku geyn karto inaad meeshaan dhex mari kartid. qaar waxaa jira cabsanaya oo aan kalsooni isku lahayn oo meesha dhex mari kara, marka ayadan sidoo kaleetood aqoontaada ama wax adiga awood u leedahay qayb weyn ayay ka ciyaarta ayadan sidoo kaleetood doorashada aad dooranaysid xawaaraha ku soconaysid. tusaale ahaan kasoo qabo adigoo san gaari wadista aqoonin 200 kuma kaxeynaysa gaariga oo cabsi kugu jirta, laakiin haddaad taqaanid waxaa laga yaabaa meelaha qaarna 200 inaa ka badan aad ku kaxeynaysa laga yaabaa, marka ayadan sidoo kaleetood dhammaantood waa sax. su-aasha saddexaad wuxuu ku leeyahay wie kann man den Lärm verringern der durch ein Fahrzeug verursacht wird. Lärm verringern wax kale ma ahan dhawaaqa gaariga ka imaanaya sidee u yareyn kartaa uu ku leeyahay, sidee loo yareyn karaa dhawaaqa ka imaanaya gaariga. qaybta koowaad wuxuu ku leeyahay durch fahren im niedertaurigen Drehzahl adigoo gaariga ku wadaya speed hoose. qaybta ku xigta wuxuu ku leeyahay durch Verwenden von Reifen mit grob stolligem Profil adigoo ku isticmaalaya lugaha ku leeyahay grob stolligem Profil waxaa la dhahaa lugaha markii ay xariiqmo dhexda ku leeyihiin isla markaana xariiqantooda gudaha usii dheertaha la dhahaa adoo gaarigaas lugihiisa ku bedelayo ku leeyahay. iyo sidoo kaleeto durch Entfernen des Luftfilters adigoo lugaha lugta ka bixinaya bahasha aariyada filter garanaysa adoo ka bixinayo ay yaranaysa ku leeyahay dhawaaqa gaariga oo soo saaraya, marka ayadana teebaa sax ah. marka haddii oo gaariga dhawaaqa soo saaro waxa kaliya sixi karta waxay tahay durch fahren im niedertaurigen Drehzahlbereich adigoo kaliya oo gaarigaada ku wada xawaare aad u yar, marka tan bis ayaa sax ka inaad lugaha wax ka bedeshid iyo in aad luft baasha aariyada filter garanaysa aad ka bixisid wax gooniya ay kusoo bedelayso malahan, marka tan bis ayaa sax ah. su-aasha afraad waxay ka kooban tahay sidoo kale 3 dhibcood wuxuu ku leeyahay welche Maßnahmen tragen zur Umweltschonung bei wuxuu ku leeyahay tilaabooyinkii ayaa gacan ka geysta ilaalinta deegaanka. qaybta koowaad wuxuu ku leeyahay die Verwendung von Leichtlauföl adigoo isticmaalayo ku leeyahay saliida qafiifka ah ama ooliyada qafiifka ah adigoo isticmaalaya sidoo kaleeto klimaanlaaga waxaa la markaa gaariga ku dhex isticmaalaysid kuleelyaha ama qaboojiyaha. Leichtlaufreifen ama sidoo kaleeto lugo si habsami leh u socda ama lugo qafiif ah oo lugooyinka kaleetood ka duwan, marka ayadan wuxuu ku leeyahay saddexdan teebaa sax ah. marka waxa ayadan sax ah in aad ku isticmaashid gaarigaaga saliida ah Leichtlauföl saliida la dhaho iyo sidoo kaleetood inaad isticmaashid Leichtlaufreifen ayagana inaad isticmaashid, marka labadan ayaa sax ah oo caawinaysa in deegaanka uu noqdo deegaan aad u qurux badan. su-aasha shanaad wuxuu ku leeyahay warum ist die Nutzung von Leichtlaufölen vorteilhaft wuxuu ku leeyahay maxay faa'iido u leedahay ku leeyahay isticmaalka la isticmaalayo saliidan la dhaho Leichtlauföl saliida la dhaho maxay macno u tahay ku leeyahay wuxuu ku leeyahay weil diese Öle maadaama ay saliidan weniger Reibung im Motor erzeugen wuxuu ku leeyahay maadaama ay saliidan budo yar ay ku reebayso ku leeyahay motorka. den Kraftstoffverbrauch verringern waxay soo kaleetood yaranaysaa ku leeyahay isticmaalka shidaalka way yaranaysaa ku leeyahay im Hausmüll entsorgt werden kann sidoo kaleetood qashinka guriga xataa oo lagu tuuri karaa ku leeyahay, marka ayadana teebaa sax ah. marka saliidan wuxuu ku leeyahay waxa ay motorka ku abuurtay maxaa yeelay ku leeyahay saliidan waxay motorka ku abuurtaa ku leeyahay budo ay ku abuurtaa ku leeyahay ama jajab ayada waa sax. sidoo kaleetood saliidan waxa ay yaraysaa ku leeyahay isticmaalaysid shidaalka ayada sidoo kaleetoodna way yaranaysaa ku leeyahay in Hausmüllka lagu tuuri karo waa qalad kuma jirto, marka labadan bis ayaa ayadan sax ah. su-aasha lixaad wuxuu ku leeyahay wie können Sie Kraftstoffe sparen wuxuu ku leeyahay sidee u safgarayn kartaa ama u dhaqaaleyn kartaa ku leeyahay shidaalka. indem ich markii aan aniga ganzjährig mit Winterreifen fahre markii aan sanadkii oo dhan aan lugaha winterka ku kaxeeyo ku leeyahay baabuurta waxaa lagu kaxeeyaa laba qaybood Sommerreifen wax la oo samarka ah iyo Winterreifenka oo ayadan xilliyada qabowga la wato.
qaybtan wuxuu ku leeyahay in Pellische Dach aufbauten entfernen adigoo wuxuu ku leeyahay ka saaraya qaab dhismeedka qafka ah ee aan loo baahnayn iyo sidoo kale tan u dambeyso ayadan ah vorausschauend fahren inaad gaariga u wadid si taxadir leh marka ayadana wuxuu ku leeyahay teeba sax ah marka ayadana waxaa sax ah indem ish marka adiga in Pellische Dach aufbauten entfernt markii aad ka bixinaysid sidoo ku leeyahay saqafka hore aan loo baahnayn iyo sidoo kale tood marka u kaxeynaysid gaarigaaga si oo taxadirnimo leh marka labadan bis ayaa ayadana sax ah in aad winter isticmaashid iyo inaad summer isticmaashid lugahaaga wax gooni ah shidaalkaada kusoo kordhinayo ma lahan Zuerst toddobaad wuxuu ku leeyahay wie schnell dürfen Sie mit einem BKW und einem Anhänger außerhalb geschlossener Ortschaft höchstens fahren wuxuu ku leeyahay markii aad baabuurkaaga wadatid sidoo kale toodna gaariga aad gadaal kaga dhigsatid uu ku leeyahay anhänger waxaa la dhahaa baabuurta caadiga ah raaxada wax gadaal lagu dhajiyo oo dadka markay guurayaan baabuurta ee gadaal kaga dhigsadaan lahaa oo aad ku socoto ku leeyahay außerhalb geschlossener Ortschaft meelaha ka baxsan magaalada oo laamiyada oo inta badan beeraha marayaan meeqa ugu sareen ah ku kaxin kartaa oo ku leeyahay gaariga marka caadi ahaan markii aad gaarigaaga BKV ga wadatid oo aad gaari ku kaxinaysid meel ka baxsan magaalada caadi ahaan waxaa loogu talagalay 100 haddii laakiin anhänger aad wadatid oo gaarigaaga bahal kale oo jiidayo oo aad maraysid meel ka baxsan magaalada waxaa lagu talina ku wadid 80 ka badan ku moodi kartid Zuerst steht wuxuu ku leeyahay wie schnell dürfen Sie mit einem LKW mit einer zulässigen Gesamtmasse von 3,0 Tonnen mit Anhänger auf Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften höchstens fahren wuxuu ku leeyahay sidee baabuur LKW ah oo asigana culeyskiis dhan markii la isku dardaro ee tahay 3.0 ton culeyskiis oo yahay isla markaana uu wax jiidayo oo ku socdo meel ka baxsan magaalada banaanka oo ku socdo imis ayuu ku kaxeyn karaa oo ku leeyahay inta ugu sareyso sidoo kale asigana isla asiga camal oo maraya soo lan hadiiba oo wax kale asiga oo jiidayo wuxuu ku soconayaa asigana 8 hadii oo marba anhänger oo wato ama LKV ahaado ama BKV ahaado LKV wuxuu kala dhexeeyo horta waxa waaye BKV ga waxa baabuurta caadiga raaxada ah LKV ga waxa baabuurta xamuulka ah ee waxa weyn ka qaadaan marka ayagan sidoo kale tood waxa lagu socdaa 8 ku soconaysa markii aad maraysid meel ka baxsan magaalada Zuerst sagaalaad wuxuu ku leeyahay wie schnell dürfen Sie mit einem BKW außerhalb geschlossener Ortschaft auf Straßen mit einem Fahrstreifen vor jeder Richtung höchstens fahren wuxuu ku leeyahay ayadana sidee ayaa baabuur BKV baabuurka caadiga ah markii aad ku socotid meel ka baxsan magaalada ayaa inta oo leh laakiin Fahrstreifenka alle Fahrstreifen waxa laga baabuurka laamiga markii oo xariiqmo leeyahay oo qayb walba xariiqmo u leeyahay ugu badnaan meeqa ku socon kartaa oo ku leeyahay asigana marba haddii aad wadatid BKV kaligiis aad wadatid oo ku socotid meel ka baxsan magaalada mar walba waxaa ku kaxin kartaa 100 laakiin waxaa jirta laba qaybood oo kala baxsan qayb waxa waaye Landstraßen waaye oo geesaha waxa ka xigo beer iyo ama barxada durduura ka xigo caadi ahaan waxaa lagu socdaa 100 sidoo kale meel kale ayadana waxaa jirta oo autobahn camal oo ogta laakiin autobahn ma ahan ayadan waxaa lagu socdaa 100 lagu socdaa laakiin ayada inta badan waa ka arkaysaa inay ku qoran tahay 100ka taas waa marka mid oo autobahn ku eeg oo Fahrstreifen xariimaha dhaxda ku leh ayaa la marka meeqa ku socon karaa ayadan wuxuu ku socon karaa 100 marka haddii aad gaari kaligiis wadatid oo ku socotid meel ka baxsan magaalada mar walba waxa ku kaxin kartaa ugu badnaan 100 ku kaxin kartaa markii laga tago autobahnka Zuerst tobanaad wuxuu ku leeyahay wie schnell dürfen Sie mit einem LKW mit einer zulässigen Gesamtmasse von 3,0 Tonnen außerhalb geschlossener Ortschaft auf Straßen mit einem Fahrstreifen vor jeder Richtung höchstens fahren wuxuu ku leeyahay marka ayadana sidii camal waay LKV meeshaan ka taagtay hore BKV ee baabuur BKV ah oo ku socda meel ka baxsan magaalada culeyskiisa dhan oo yahay 3.0 ton oo ku socda meel ka baxsan magaalada oo wadlaami walba oo maraya xariiqmo ay ka dhaxayso
ugu badnaan meeqa ku kaxayn karaa asigana sidoo kale tad waayo wuxuu ku kaxayn karaa 100 haddii ooba waxba uusan jiidanin mar walbo wuxuu ku soconaya asigana 100. Su-aasha 11 wuxuu ku leeyahay wie schnell darf ein LKW mit einer zulässigen Gesamtmasse von 3,0 Tonnen und einem Anhänger auf Autobahn hochstens fahren. Tan aydan wuxuu ku leeyahay sidee u kaxayn kartaa uu ku leeyahay baabuurka LKV-ga ah oo oo xamuulka ah oo culeyskiisa dhan marka isku dardaro oo yahay 3.0 ton oo yahay oo wax kale tood oo jiidayo ama isjiid oo jiidayo autobaanka markuu marayo ugu badnaan meeqa ku socon karaa uu ku leeyahay ama autobahn ha ku socdo ama ha ku socdo Landstraße ha ku socdo mar walba haddii oo LKV-ga wax kale tood jiidayo akhtish ayuu ku soconaya ama autobahn ha ahaato ama Landstraße ha ahaato ama außerhalb geschlossene Ortschaft wixii dan ha noqoto mar walba wuxuu ku soconaya 80 ku soconaya. Zuerst Labi Tabanat wuxuu ku leeyahay auf welchen Straßen gilt die Richtgeschwindigkeit von 130 km/h wuxuu ku leeyahay wadooyinkii ay ka jiraan uu ku leeyahay ina ugu yaraan aad ku kaxisid 130 km/h qaybta koowaad wuxuu ku leeyahay auf Kraftfahrstreifen qaybta koowaad wuxuu ku leeyahay auf Kraftfahrstraßen außerhalb geschlossener Ortschaft mit mindestens 2 markierten Fahrstreifen für jede Richtung wuxuu ku leeyahay auf Kraftfahrstreifen kan wadooyinkan camal oo autobahn camal autobahn ma ahan oo ka baxsan laakiin magaalada uu ku leeyahay oo laba xariiq ma leh dhinac walba u socdo laba xariiq markuu ka leeyahay yacni qayb walba waxaa ku kaxayn kartaa uu ku leeyahay 130 sidoo kale waxaa 130 ku kaxayn kartaa uu ku leeyahay auf Kraftfahrstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften mit baulich getrennten Fahrbahnen vor jeder Richtung sidoo kale tood markii aydan sidoo kale tood Kraftfahrstraßen wadadan ah oo ka baxsan magaalada markii oo xariiqmaha dhismo lagu kala gooyay ayadan soo kale waxaa ku socon kartaa uu ku leeyahay 130 iyo autobank soo kale waxaa ku socon kartaa uu ku leeyahay 130 marka dhamaantood waa wada sax waxaa ku wada kaxin kartaa 130 km/h. Zuerst ku leeyahay wo können Sie Ihre Gepäck unterbringen den Kraftstoffverbrauch nicht unnötig zu erhöhen wuxuu ku leeyahay boorsooyinkaaga inta dhiganaysa uu ku leeyahay si aadan shidaalka si maalayacni ah aanan saaid ugu sii siyaadin wuxuu ku leeyahay hintadan fodasis wuxuu ku leeyahay kursiga hore la fadhiisanaya gadaashiisa auf den Dach Gepäckträger wuxuu ku leeyahay baabuurta qaar kor waxay ku leeyihiin wax oo boorsooyinka celiya iyo wuxuu ku leeyahay in Kofferraum waxa la baabuurka meeshta markii la furayo alaabta inta la geliyo kabacdi la xiraayo ayaa aydan lahaa Kofferraumka marka gaarigaaga boorsadaada inta dhiganaysa uu ku leeyahay markii aad wadatid si aad si maalayacni ah shidaal ku qasaaran marka labo arin ayaa ku furan qaybta koowaad waxay tahay hintadan fodasitzen qaybta gadaal dambena dhigatid kuraasta hore qaybta ka dambaysa dhigatid iyo sidoo kale tood meesha loogu talagalay ah in Kofferraumka gadaal dambe ee loogu talagalay boorsooyinka iyo waxa marka uu wadatid culeyska in la gashto marka labadooda bis aydan sax ah. Zuerst 14 wuxuu ku leeyahay wo führt schnelles Fahren häufig zu Unfällen wuxuu ku leeyahay intee ayaa ku hogaamiso ku leeyahay marka gaariga xoog u wadid inta badan shilka ama shilalka wuxuu ku leeyahay an Straßen Kreuzungen und Einmündungen wuxuu ku leeyahay wadooyinka markay karooska yihiin oo kale tood iyo markii aad meel lagu leexanaysid iyo sidoo kale tood an Fußgänger Überwegen wuxuu ku leeyahay meelaha dadka lugeynaya laamiga loogu talagalay oo aragtay laamiga meel oo xariiqma la jirto loogu talagalay inay lugeeyaan iyo sidoo kale tood in Kurven buu ku leeyahay Kurven waxa la markii gaariga oo laamiga u socdo oo qaloocanay laamiga markuu laamiga qaloocdo ayaa waxa aydan lahaa Kurven marka markii gaariga xoog wadid intee ay inta badan marka adiga shilka ku galashaa uu ku leeyahay marka aydan dhamaantoodu waa wada sax laamiyada markii crosska oo kale todo kale marka xoog u wadid ama marka laamiga meel ku leexanayso kale todo kale shilka uu imaada oo xoog u wadid sidoo kale tood maaris dadka ay marayaan oo kale marka xoog wadid waxa laga yaabaa qof inuu meesh mar raba baaskiil wato ama caad ordayo aydan shil uu ka imaada iyo markii aad laamiga qaloocan aad galaysa aydan sidoo kale tood shilka waa imaada marka saddexdooda waa wada sax aydan. Aasha 15 waxay ka kooban tahay oo u jeedin 4 dhibcood wuxuu ku leeyahay wo ist so schnelles Fahren besonders gefährlich intee ayaa inta badan halis tahay markii aad si xooli gaariga u kaxinaysid wuxuu ku leeyahay an Fahrbahn Verengungen marka wuxuu ku leeyahay laamiyada markii ay aad u yar yihiin
anbaan übergänge meesha oo laamiga tareenka ka gooyo iyo sidoo kaleetood unübersichtliche Kurven iyo laami qaloocan oo aadan si fiican u arkayn uu kuleeyahay marka ayadana teebaa saxe ayadan sidoo kaleetood waa sax inta badan waxaa shilalka sababa markii aad laami wada cariiri ah maraysid ama wada yariis ah maraysid anbaan übergänge meesha oo laamiga tareenka gooyo kale markaa xoog u socotid waxaa laga yaabaa in birta soo degto oo isxiraysay ama waxaa laga yaabaa tareen meesha iska maraayo inuu iska maraayo kaleetood ayadana ama laamiga naftirkiisa inuu toosnayn baa laga yaabaa meelaha tareenka maraya inta badan xoogaa yar hoos ay u joogaan ama birooyin ayaa waxaa laga yaabaa in ay si fiican u sinaan sida laamiga camal iyo sidoo kaleetood iyo unübersichtliche Kurven markii laami xoog markaa gaari u kaxaysid oo laami qaloocan aa maraysid waxaa laga yaabaa gaari kale baas garaynaya inuu hortaada ka imaado iyo wax kaleetooda lamid ah marka saddexdooda waxay ku hogaaminayaan in si aad shir ku gashid markaa gaariga xooliga wado su-aasha 16aad wuxuu ku leeyahay wie durchfahren Sie ein Kurven waxaa la dhahaa laamiga markii oo geeska qaloocan yahay markuu soo qaloocan yahay oosan toosnayn markuu laamiga soo qaloocan yahay ama wadada soo qaloocan tahay sidee u gudbaysaa uu ku leeyahay meesha wuxuu ku leeyahay erst beim Übergang in der gerade wieder beschleunigen wuxuu ku leeyahay markii aad soo gudubto ku leeyahay markii aad qayb toos imaado ku leeyahay kabacdi aad sii sharleynaysaa gaarigaaga vor der Kurve Geschwindigkeit vermindern intaadan meesha laamiga qalowcana aadan soo gaarin xawaarahaaga waa yareynaysaa uu ku leeyahay erst im Scheitelpunkt die Kurve Geschwindigkeit vermindern wuxuu ku leeyahay markii aad meesha oo laamiga qaloocada dhex bartankeeda camal amaraysa meesha iska jirayo kale markaa maraysid xawaarahaaga yareey uu ku leeyahay marka ayadana teebaa sax marka ayadana waxaa sax in aad markii aad kuufaha gudubtid ka bacdi inaad gaarigaaga aad sii shalgalayso iyo sidoo kaleetood markii aad intaadan kuufaha soo gaarin ka hor inaad gaariga xawaarihiisa aad hoos dhigtid labadan ayaa sax mar haddaad dhex bartanka imaadid wixii markaa kugu dhici lahaa way kugu dhaceen maxaa yeelay gaari kale inuu meesha kasoo baxa laga yaaba adiga oo ku jeedin marka waxaa fiican marka ugu horeysa markii aad kuufaha kasoo baxda inaad gaarigaaga caad usii wadatid oo waddo toosna aragtid iyo sidoo kaleetood markii intaadan kuufaha soo gaarin ka hor inaad xawaarahaaga aad yaraysid marka labadan bis ayaa idan saxay womit müssen Sie hier rechnen sawirkan oo kale marka aragtid maxay tahay waxyaabaha inaad ku fikirtid maxay tahay oo ku leeyahay waa ujeedin meeshaan gaari ayaa yaalo gurigan gaari ayaa kasoo bixi rabo waa ujeedaa gaari ayaa kaa dambeeya markaa sawirkan oo kale aragtid maxaa kugu soo dhacay uu ku leeyahay qaybta koowaad wuxuu ku leeyahay das eine Mündung übersehen werde in ninkan meesha soo baxaya aad arki weyso ku leeyahay das Kinder auf die Straßen laufen in caruur ay meelahan socoto kaleetooda ku leeyahay das so schnell gefahren wird iyo in si dhaqsi ah si xawli ah loo wadi kara gaariga marka ayadana teebaa sax ayuu ku leeyahay marka ayadana sidoo kaleeto waa ujeediin in das eine Mündung übersehen werden in gaarigan meesha kasoo baxay oo aa arki weyso kaleetoodoo kale waa dhici kartaa oo asigana oo soo baxo oo aa isku dhacdaan labadiina sidoo kaleetood caruur ayaa meelaan kasoo bixi karta waa meel xaafada ujeediin guryo ayaa ku yaal meesha caruur ayaa kasoo bixi karta meesha das Kinder auf die Straße laufen in caruur ee meelahan mari karto kale iyo sidoo kale das so schnell gefahren wird in ninkan oo si dhaqsi loo wadi karo in kan meesha kasoo baxay xoog usoo wadi karo in ninkan meesha marayo kale oo xoog asan u wadi karo marka adiga kan ka istaagto gadaal damkaaga dhici karo marka wax walbo waa macquul xaaladda markay meeshan oo kale marayso marka saddexdooda waa sax su-aasha 18aad wuxuu ku leeyahay womit müssen Sie rechnen sawirkan oo kale marka aragtid maxaa tahay uu ku leeyahay inaad ka fikirtid waa ujeediin waxa uu ninkan ku amray inaad dhinacan ka leexatid uu ku amray ninkan bas ayaa meeshan taagan flarti ku baxsantaha adiga marka maxaa ku fikiraysaa ku leeyahay marka ama inaad ku xisaabtanta ay tahay markii aad xaaladan oo kale maraysid qaybta kood wuxuu ku leeyahay mid person die Fahrbahn überqueren dad oo laamiga dhinacan ka goynayo kaleetood ayaa igu soo dhici karta ku leeyahay mit einem Fahrzeug das am Bus vorbeifährt in baabuur kale meeshan ka imaanayo oo baskan rabo in uu soo baas gareeyo maadaama kan meesha taagan yahay in baskan oo dhinaciisa kasoo baas gareeyo oo wadada kasoo baxo iyo sidoo kaleeto das ich vor der Kreuzung halten musst iyo inta aadan markii inta aad gaartid oo aadan leexan inaad gaariga ay celinayso oo kaleetood oo kale maxaa yeelay waxaa laga yaabaa in baska oo weelin ka batay oo laamiga yar yahay oo labadiina idin wada deeqeen oo kale marka waxaa kaloo igu soo dhici karta kule in marka meesha marayo aan celiyo gaariga marka ayadana teebaa sax marka ayadan sidoo kaleetood
dhammaan waa wada sax maxaa yeelay mid person die Fahrbahn dad baa meelahan baska hortiisa lugeyn kara oo meesha waa xaafad dad ayaa meesha lugeyn kara sidoo kale tood mit einem Fahrzeug das am Bus vorbeifährt baska haddii oo meesha taagan yahay inta badan baabuurta taxadir ay ku sugaan maystaan waxay isleeyihiin iska dhaafa oo intaan suuleed soo gudba ayadana waa sax sidoo kale das ich vor der Kreuzung halten muss in aniga oo aan celin doono gaariga inta markaa inta gaaro oo labadiina meesha idin wada deeqi weys oo ay qasab kugu tahay inaad sugtid inta oo baska inta ka soo baxayo ka dac marka soo bax ka bacdina gashid marka saddexdood ayadana soo kale waa wada sax su'aasha 19 wuxuu ku leeyahay womit müssen Sie hinter diese Straßenkübe rechnen Straßenkübe waxa la markii laamiga meeshan hoostiisa waxa soo jira laha Straßenkübe marka la meeshan hoosteeda maxaa ku fikiraysaa ku leeyahay maxaa ka dhici karo ku leeyahay meesha soo kaleeto wuxuu ku leeyahay auf meinem Fahrstreifen kann sich ein langsam fahrendes Fahrzeug befinden wuxuu ku leeyahay Fahrstreifen adiga ku socotid meesha adiga ku socotid la Fahrstreifen ku socotid waxaa laga yaabaa ku leeyahay qaybta hoose baabuur kaleetood oo ka horeeya oo si tartiib u socdo inuu jooga laga yaabaa ku leeyahay es kann ein Fahrzeug entgegenkommen das meine Fahrrichtung mitbenutzt waxaa laga yaabaa ku leeyahay baabuur kaleetood oo hortaad inuu ka yimaada laga yaabaa oo maxaa ku dhahaa ii sheeg laga yaabo in baabuur kale uu bahoolin oo sameynayo ama qof kale inuu baasgaray oo rabo oo dhankaaga oo ku socdo kale waa dhici kartaa ku leeyahay iyo sidoo kaleetood dort kann ein Fahrzeug liegen geblieben sein waxaa laga yaabaa ku leeyahay inuu gaari meesha iska yaalo oo ama gaari halaabay ama mid meesha ku yaray in gaari meesha yaala laga yaabaa ku leeyahay marka ayadana teeba sax marka ayadana sidoo kale dhammaantood waa wada sax auf meinem Fahrstreifen kann sich ein langsam fahrendes Fahrzeug befinden baabuur tartiib u socdo inuu horta hoos jooga laga yaabaa sidoo kale es kann ein Fahrzeug entgegenkommen das meine Fahrrichtung mitbenutzt gaari ayuu hortaada ka imaanaya laga yaabaa oo dhankan dhinaca adiga ku socod kula isticmaalayo iyo sidoo kale dort kann ein Fahrzeug liegen geblieben sein inuu gaari iska yaala meesha oo ku halaabay ama ninka laamiga geeskiisa taagan yahay ama waxaas oo kaleetood waxaa laga yaabaa inuu gaari meesha taagnaa karo marka ayadan sidoo kaleetood saddexdooda waa wada sax su-aasha 20aad wuxuu ku leeyahay waa 5 dhibcood saa ujeediin waa video wuxuu ku leeyahay si aad ugu jawaab su-aasha waa inaad videogan dartaa marka hadda videogan daawatay marka wie verhalten Sie sich jetzt hadda marka xaalad markay saan camal tahay sidee u macaamilaysaa uu ku leeyahay waxa uu aragtay gaariga marka socota gaari blue ee hortaada ka imaaday oo meeshan galay gaariga wali waa taagan yahay meesha oo toos uma wada dhamaanin marka xaaladan oo kale marka maraysid sidee marka adigu u macaamilaysaa uu ku leeyahay wuxuu ku leeyahay Versorgen und Bremsbereit sein taxadiraa sameynaysaa breakgaagana diyaar ay ahaan break ayaa diyaar la noqonaysaa waxaa laga yaabaa ninka inuu meesha inuu ku kul fireero ama ku kul celi rabo oo gaal usoo bixi karo sidoo kaleetood nach links ausweichen wuxuu ku leeyahay dhankan bidix ayaan usoo bedelanaya uu ku leeyahay iyo gleichmäßig weiterfahren sida aniga ahayn baa hore usii soconaya uu ku leeyahay oo wax isbedel ah ma sameynayo marka teeba saxay marka waxa kaliya saxda ee waxay tahay Versorgen und Bremsbereit sein inaad taxadisid oo breakgaaga aad diyaar oo ku ahaado maxaa yeelay xaalad walba dhici kartaa meesha taas bas ayaa sax because link dhinaca ma soo bedeli kartid maxaa yeelay mooto ayaa meesha soo maraysa sidoo kale xawaaraha ku socodsiin ku socod maxay haddii ninkan gadaal u soo baxo shil ayaa meesha ka abuurmaya xataa hadduu ka gardarin xataa waa inaa u kaxaysaa gaariga si qof gentleman ah marka tan bis ayaa aydan sax su-aasha 22aad wuxuu ku leeyahay worauf müssen Sie sich in die Situation einstellen xaaladan oo kale markay soo maraysid oo kaleetood maxaa kugu soo dhacay uu ku leeyahay das Verkehrszeichen durch den LKW verdeckt sein wuxuu ku leeyahay Verkehrszeichen waxaa la calaamadaha laamiga ku rakiban ee ku amraya in LKW-gan meesha taagan oo ka qariyo sidoo kale taas LKW Fahrer auf die Fahrbahn springt ninka gaariga wado in oo laamiga kusoo boodi doono iyo das Gegenverkehr auftaucht in gaariga ka hor imaado aad xayirto ayadana marka ayadana taa sax ay ku leeyahay marka dhammaantood ayadana waa wada sax das Verkehrszeichen durch den LKW verdeckt sein in calaamadaha laamiga oo gaarigan ka xayiro in 30 lagu socdo in 20 wix calaamashan ku qoran in aad leexan kareenin in oo wixii marka calaamada socto gaarigan ka qarinayo LKW meesha taaga xamuulka ah
iyo dass der LKW-Fahrer auf die Fahrbahn springt in ninka gaariga wado oo laamiga dhinacan uu kusoo boodi doono maadaama gaarigiisa uu baakin geliyey iyo das Gegenverkehr auftaucht in meelahan gaari oo kasoo bixi doono oo because maadaama wadadiisa caadiga tahay in gaari meeshan oo kasoo bixi doono oo kaleeto marka ayadan sidoo kale dhammaantood waa wada sax su-aasha 22aad wuxuu ku leeyahay was verlängert den Bremsweg maxaa dheereeyo ku leeyahay breega meelaha qaar baabuurta qaar markaa breeg qabato hore kama qabsamayaan adoo breegi heeso ay gawaarida qaar hore usii soconaan waxyariis marka maxaa dheereeyo ku leeyahay fahren auf gefährliche Strecken meel oo dalandig ah markaa ku kaxaynaysa gaariga wuxuu ku leeyahay mitführen eines unbremsten Anhängers wuxuu ku leeyahay markii aad jiidaysid baabuurkaaga markuu jiidayo waxa yarka anhängaha caadiga ah oo gadaal dambe laga dhejinayo oo bilaa break ah markaad jiidayso kaleetood ama wuxuu ku leeyahay naasa oder glätte Fahrbahn laami qoyan ama laamida qaar markuu barafka ku da-o kabacdi oo ku dhigaan meesha waxay isku bedelaan glätte isku bedelaan meel tarax ay isku bedelaan markii aad meeshaas oo kale ayadana gaari kugu wadido ku leeyahay ayadana break uga dheeraadaan oo ku leeyahay marka teebaa saxa marka ayadan sidoo kale dhammaantood oo sax fahren auf gefährliche Strecken markii aad gaariga ku wadid meel dalandig ah iyo sidoo kaleetood mitführen ein ungebremste Anhänger markii oo bahal kaleetood oo kugu gaariga aad jiidaysid oo alaab ku saarantaa bila break ah oo kale marka ayadana wadid ina gaariga xoog usoo riixdaa laga yaabaa oo gaariga breegiisa xoogaa yar dheeraado iyo sidoo kaleetood markii aad meel qoyan ama meel oo taraarax ah aad ku socto ayadana breegaga ugu dheeraanaya marka dhammaantood ayadana wada sax su-aasha 23aad wuxuu ku leeyahay wovon ist der Bremsweg abhängig muxuu ku tiirsan yahay uu ku leeyahay breega vom Zustand der Bereifung wuxuu ku leeyahay waxay ku xiran tahay uu ku leeyahay lugaha oo gaariga iska leeyahay ku xiran ku leeyahay Fahrbahn Überfläche uu ku leeyahay sida laamiga gaariga laamiga ama wadada sida u simanta ku xiran yahay ku leeyahay iyo sidoo kale Bremsanlage habka systemka ay habka breega ay ku xiran tahay ku leeyahay marka ayadana teeba sax ah marka ayadana sidoo kale dhammaantood sax marka breeg wuxuu ku xiran yahay ku leeyahay Bereifung lugaha gaariga wato ku xiran yahay sidoo kale sinaanta laamiga oo siman yahay ama wadada simanta ku xiran tahay iyo sidoo kale wuxuu ku xiran yahay habka breega oo gaariga ku xiran ayuu ayadana sidoo kale ku xiran tahay marka dhammaantood sax su-aasha 24aad wuxuu ku leeyahay sie verdoppeln ihre Geschwindigkeit waxa aad laba jibaartay buu ku leeyahay xawaarahaaga wie verändert sich der Bremsweg xawaarahaaga breega ah sidoo isku bedelaya uu ku leeyahay markaas xawaarahaaga wuxuu isku bedelaya waxay tahay isha haddii xawaaraha marka aad ku socotid aad laba jibaartid wird 4 mal so lang 4 jeer kaleetood ayuu xawaarahaaga breega oo isku sii bedelaya markii aad xawaarahaaga laba jibaartid haddii aad 20 ku socotid oo aad ka dhigtid 40 breegaga wuxuu isku bedelayaa 4 jeer kaleetood ayuu sii noqonayaa breegaga su-aasha 25aad waa xisaab oo u baahan mar walba inaad maskaxda ku haysid maxaa yeele mararka qaar oo kale inaad wax qashna ku samaysid oo inaad xisaabisa laga yaabaa wuxuu ku leeyahay nach welche Faustformel waxaa la xisaab qayb formuladan meesha ku jirta saxda ah la kann man aus der Geschwindigkeit den Weg in Metern ermitteln wuxuu ku leeyahay xawaaraha mitir ahaan xawaaraha ku socotid inta badan kilometer waa mitir ahaan formkee loo isticmaala uu ku leeyahay in dem Fahrzeug eine Sekunde zurücklegt wuxuu ku leeyahay formka loo isticmaalo marka xawaarahaaga oo kilometerka ah oo aradna mitir u bedeshid xawaaraha waa marka saddex qaybood meeshan kugu taalo qaybta koowaad waxa waa Geschwindigkeit ka ku socotid oo loo qaybiyay 10 lagu dhuftay hadana Geschwindigkeit aad ku socotid oo loo qaybiyay 10 markaas wax ku soo bixi jawaabta tan kale waxa waa Geschwindigkeit ka ku socotid oo loo qaybiyay 10 lagu dhuftay 3 iyo Geschwindigkeit aad ku socotid iyo loo qaybiyay 10 oo lagu dhuftay 5 marka ayadana teeba sax ayuu ku leeyahay formkee ayaa sax ah si loo ogaado mitirkeeda marka si aad u ogaatid marka waxaa sax ah in Geschwindigkeit aad ku socotid meesha hadda 40 tahay ama 30 tahay aad ku socotid inaad 10 u qaybisid kadibna aad ku dhufatid 3 waxaa ku soo baxayso jawaabta saxda ah ee ah mitirka marka aad ku socotid aad ku soo baxayso su-aasha 26aad ayadana waxay tahay nach welche Faustformel kann man aus der Geschwindigkeit den Bremsweg in Metern bei einer normalen Bremsung berechnen
wuxuu ku leeyahay hadartan marka waxa waaye ii sheegtay war waxay ahayd geschwindigkeeda hadartan waxay tahay bremsaha vega bremsaha meter ahaan intuu meter markaa break qabat inta meter oo sii dhaqaaqayo sida loo qashnin garan kara oo kuliya markaan waxa idin ku leeyahay geschwindigka ku socodid adiga oo loo qaybiyo 10 oo lagu dhufto 5 geschwindigka adiga ku socodid oo lagu dhufto 3 loo qaybiyo 10 iyo geschwindigka oo loo qaybiyo 10 lagu dhuftay geschwindigka oo loo qaybiyo 10 ayadana tayaa sax buu ku leeyahay ayadana marka waxa sax ah si brems vega markaa qashnin garanayso waxa sax ah in geschwindigka oo loo qaybiyo 10 lagu dhuftay geschwindigka oo loo qaybiyo 10 ay ku soo baxayso brems vega oo meter ah ku soo baxayso markaas يا أيضا درتان حسابها درتان حسابين كرنا وحو كلية هاي سؤال لبي تمناد وحو كلية سيفاغن متخايتش كائمها وحا قصعتها وكلية صدن كيلومتر قصعتها وكلية بالأور dabei beträgt der Bremsweg bei einer normalen Bremsung 9 Meter بريكاجا wuxuu ka kooban yahay kuleeyahay 9 mitir naqde first formula markii qashna xisaabta caadiga ah ee formulooyinka soo aragna la eego wie lang ist der Bremsweg unter gleichen Bedingungen bei 60 km/h dhir noocee ah ayuu ku gaaray oo kuleeyahay markii aad 60 km/h gaartid meeqa mitir camal ay ku noqonaysaa oo kuleeyahay markaas marka adigu ku weydiinaa haday Bremsweg formuladeeda markaan soo qaadan maxay ahayd Geschwindigkeit loo qaybiyo 10 lagu dhuftay Geschwindigkeit loo qaybiyo 10 ah hadartan tan marka 30 ku socotid waxay noqotay buu ku leeyahay 9 maxay ku noqotay 30 loo qaybiyo 10 lagu dhuftay 30 loo qaybiyo 10 maxaa soo baxayso eber 3 ku dhufo 9 mitir ku soo baxayso tan marka waxa lagu weydiiyay waxay tahay 60 kilomitir marka aad ku socotay marka maxay meeqay noqon kartaa meeqa bremsunka marka meeqa mitir ayuu noqon karaa ku leeyahay marka waxa haystaa 60 u qaybiyo 10 lagu dhuftay 60 kale u qaybiyo 10 6 iyo 6 isku dhufo 36 ku soo baxayso marka saas ay xisaabta ku imaanaysaa في عنتها مركنا مسكحة كويسة أنت حفظت لها إنها حسابت سي وما نسأ وقعت سي هدو هدنا غشن كهدو مسكحة هذا سكود فتيت سأش سديد لا تنادو كلها في فهالتن سيسش سديد هذا مع عمل سو كلها هاي Geschwindigkeit vermindern und Geschwindigkeit vermindern und notfalls anhalten هذا تانو كلاتوت حوارها غيري ودي لو بهذا حتى بريك خبو كلها هاي محايل علامة waxay ku cadeynaysaa in ninkan adiga oo ka leeyahay oo maxaa la adiga inaad sugto qasab ay tahay oo ninkan aad gudbisid marka gudbo ka bacdi adiga aad gashto calaamada aragtid oo gaduud inta ka ah madow inta ka ah macnaheedu waxay tahay ninkan ayaa mar walba soo gudbi kara labadiina meesha idin deeqda ninkan ay soo gudbaya ka bacdi ayaa galeysid weiterfahren und auf den Gehweg ausweichen hore ayaa u soconaya oo kuleeyahay kadibna dadka meesha ku socdaan ayaan ku soconaya lugta saarnaya oo kuleeyahay kadib baan gudbaya ihr beschleunigt weiterfahren hora usi wadanaya weil der Gegenverkehr fahren muss hora ayaa usi shalana usi soconaya maadaama ninka iga soo horjeedo in asiga uu sugo ay qasab ku tahay kuliya waa si wadaya gaariga marka aydan teeba saxay marka maadaama ku sheegay in baashan marka aragtid oo gaduud inta ka ah in adiga inaad sugsid ay qasab tahay waxay taa marka Geschwindigkeit vermindern xawaaraha yareynaysa notfalls anhalten waana celinaysa ilaa ninkan ka soo gudbayo meesha maadaama calaamadan ku amrayso waxaan kale tood waa bullshit سؤال 29 wuxuu ku leeyahay was müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen beachten calaamadan oo kale tood Verkehrszeichen waxa la calaamadahan laamida ku qoro ku dhagan ayaa la Verkehrszeichen marka calaamadan oo kale aragtid maxaa kugu soo dhacay guriga ku yaal meeshan baawura baakiman carruur ku ciyaaraysa oo bunun wadata dad caadi ah maraya meesha yani waxa ku soo dhacay inay xaafadaha ku soo warmaysa qaybta kood wuxuu ku leeyahay Fußgänger dürfen die Gänsestraße breit nutzen dadka meesha lagu geenayo wadada meel alla meesha rabaan ay ka isticmaali karaan ku leeyahay Kraftfahrzeug müssen mit Schrittgeschwindigkeit fahren baabuurta caadiga ah Schrittgeschwindigkeit waxa lahaa markii gaariga bila ashar la ku wada Schrittgeschwindigkeit Kinder dürfen auf der Gesamtstraße spielen carruurta meel alla meesha doon ay wadada ka ciyaar karaan oo kuleeyahay marka ayadana teeba sax ah dhamaantood waa sax maxaa yeelay dadka lugeynaya xaafada meel alla meesha doonaan ay ka lugeyn karaan waa in adiga sugtaa qof hadoo meesha ku samaro sidoo kale dad Kraftfahrzeug müssen Schrittgeschwindigkeit fahren baabuurta Schrittgeschwindigkeit wax kale maahan gaariga ayadoo hal marsh kugu jirto hal gang kugu jirto ama hal ay ku tahay marshada waxa bila sheer la ay ku kaxeynaysaa gaariga oo sheer la dhan lugta masaar sa is wada gaariga kaligiis iska gudoomay iyo sidoo kale tood Kinder dürfen auf der Gesamtstraße spielen carruurtana wadada meel alla meesha rabaan ka ciyaari karaan oo qof kaga hortaagan malaha maadaama meesha xaafad ay tahay سؤال صدنات wuxuu ku leeyahay wie können Sie den Reifenverschleiß gering halten in maxaa sidee ayaad ku alaalin kartaa oo ku yareyn kartaa oo ku leeyahay in lugahaaga ay jaxmaan oo ku leeyahay
Ich verzichte möglichst auf starkes Beschleunigen waxaa iska taxdiraya uu kuleeyahay in aan gaariga aan saaid u sharleeyo. Ich kontrolliere regelmäßig den Reifenfülltrug. Waxaan kontrolaya uu kuleeyahay lugaha joogta u kontrolaya uu kuleeyahay sida ay u buuxaan nafta ariyadu si u buuxaan lugaha ayaa kontrolaya uu kuleeyahay. Ich verwende Gänzia Winterreifen. Sanadka dhan waxaan ku isticmaalaya uu kuleeyahay Winterreifen isticmaalaya gawaarida lugaha loogu talagalay xilliyada winterka si oo aan u yareeyo kuleeyahay micnaha in lugahayga ay iga jajexmin. Marka ayadana tii asaxay. Marka ayadana waxaa sax ah in ich verzichte möglichst auf starkes Beschleunigenka marka sharlada ku yaranaysa gaariga oo saaid uma sharlinaysid. Iyo sidoo kale ich kontrolliere regelmäßig den Reifenfülltrug. Waxaa sidoo kale joogta u kontrolaysa ariyada marka ku jirta lugtaada. Inaad sanadkii oo dhan Winterreifen ku kaxisid wax ka jira malahan waa been. Su-aasha 31 wuxuu ku leeyahay wie sollten Sie sich hier verhalten? Sidaan oo sawirkan oo kale marka aragtid sidee u macaamilaysaa. Kuufaha hadda idin sheegaya waa kan oo laamigan toos uma toosna waa qaloocanaya. Marka qaloocaas wax walba dhici karo. Gaariga hortaada ka imaan karo, gaari kale meeshan taagan wax walba dhici karo. Marka wuxuu ku leeyahay ich sollte auf meine Fahrstreifen weiterfahren. meesha aniga aan ku socdo Fahrstreifenkayga dhanka aniga aan ku socdo unbaa hore usii soconaya uu kuleeyahay. wuxuu kuleeyahay links an den Fahrbahnschäden vorbeifahren. meeshaan bidixda ah oo jajaban aan ku soconaya uu kuleeyahay. Die Geschwindigkeit stark reduzieren. xawaaraha aan ku socdana saaid ayaa u yareynaya uu kuleeyahay. marka ayadana tee baa saxay. marka ayadana waxaa saxay bis in auf mein Fahrstreifen weiterfahre in aan dhankaaga adiga aa ku soctid iyo sidoo kale Geschwindigkeit stark reduzieren xawaaraha gees. haddii ninkan ku dhahayo dhankan bidixa u wareegsanaya umuriska waxa laga yaabaa inuu gaari hortaada ka imaado isla markaan adiga oo kugu dhufto. maxaa yeelay gaariga inta ka imaanaya uma jeedo qofka markaa meeshan ka socda marka inuu adigana kugu dhufta laga yaabaa. marka kaliya waxaa sax ah in dhankaada aad ku socotid xawaarahaagan ay yareysid maadaama meesha ay luuq tahay oo waxa hortaada jooga aadan garanayn. su-aasha 32 waxay leedahay Sie fahren schon lang mit hohen Geschwindigkeit. waxa muddo badan ku socotaa uu kuleeyahay xawaaro saaid u sareeya. welche Auswirkungen kann dies haben? saameyn noocee ayay yeelan kartaa uu kuleeyahay tan. Die Konzentrationsfähigkeit nimmt ab. xawaaraha concentrationkaaga ayaa awooddaada oo concentrationka ayaa yaraanaysa uu kuleeyahay. iyo sidoo kaleeto das Gefühl für die richtige Küfengeschwindigkeit wächst. waxay kordhayo uu kuleeyahay in aad dareentid xawaaraha aad ku soconaysid kuufaha xawaaraha saxda ah aad ku soconaysid kuufaha. iyo sidoo kaleeto das Gefühl für die Geschwindigkeit lässt nach. waxaa sidoo kaleeto dabcay uu kuleeyahay dareenka xawaaraha marka adiga aad ku wadid ayaa sidoo kaleeto dabcay uu kuleeyahay. marka teeba sax. marka waxaa sax ayuu kuleeyahay die Konzentrationsfähigkeit nimmt ab. waxaa sidoo kale yaraanaya uu kuleeyahay awooddaada taxadirnimo ayaa yaraanaysa uu kuleeyahay. sidoo kaleeto das Gefühl die Geschwindigkeit lässt nach. sidoo kaleeto waxaa idan yaraanaya uu kuleeyahay ii sheeg xawaaraha dareenka xawaaraha marka adiga gaariga ku wada ayadana sidoo kaleeto waa yaraanaysaa. marka labadaas bis ayaa saxa. in inaad sixaysid Geschwindigkeitska oo kuufaha markaa gelaysa sixi oo kordhayo waa been wax ka jira malaha. wuxuu kuleeyahay Wozu kann langs fahren mit höherer Geschwindigkeit führen. wuxuu kuleeyahay in aad muddo badan xawaar saaid ah ku kaxaysid maxay ku hogaaminaysaa. wuxuu kuleeyahay das Gefühl für die Geschwindigkeit lässt nach. waxaa yaranaya uu kuleeyahay dareenka dhanka xawaaraha ah. es wird so dicht aufgefahren si hoosta cariiri ah baa lagu kaxinaya uu kuleeyahay gaariga. die Reaktionsbereitschaft nimmt zu. waxaa kordhaya uu kuleeyahay reactionka ayaa kordhaya uu kuleeyahay bixinaysid baa kordhaya uu kuleeyahay. marka ayadana teebaa sax ah. marka ayadana waxaa sax ah das Gefühl für die Geschwindigkeit lässt nach. waxaa yaranaya xawaaraha dareenka xawaaraha kusoo kadib. iyo sidoo kaleeto es wird so dicht aufgefahren. iyo si cariiri ah ayaad qofka ugu kaxinaysaa gaariga maadaama muddo badan soo waday gaariga oo muddo badan aad soo wadana si xooli ah aad u kaxinaysa gaariga. marka labadan bis ayaa idan sax ah. su-aasha 34 wuxuu ku leeyahay wann besteht die Gefahr dass die eigene Geschwindigkeit unterschätzt wird. wuxuu ku leeyahay goormee ay imaanaysaa uu ku leeyahay halista
in xawaaraha adiga aad ku socotid aad qiyaasi kari weyso goorma imaanaysa uu kuleeyahay. Wuxuu kuleeyahay wenn die Straße breit und ohne Randbebauung ist, wuxuu kuleeyahay markii laamiga uu weyn yahay haddana oo Randbebauung waxaa la laami xariiqmaha meesha u dhexeeya oosan lahayn. Iyo tan kale oo ah wenn man schon lang mit höherer Geschwindigkeit gefahren ist, markii qof muddo badan oo xawaare saaid ah uu kusoo kaxeynay. Iyo wenn die Randbebauung der Straße ständig wechselt, iyo laamiyada marka meesha xariiqmaha meesha ku qoran markii ay si joogto ah isku bedelmayaan ayaa ayadana sidoo kale tood ayaa keeni karta u kuleeyahay inaad xawaaraha ku socotid aad qiyaas kari weysid. Marka ayadana teeba sax marka ayadana waxaa saxa bis in wenn die Straße breit und ohne Randbebauung ist, iyo sidoo kale tood wenn man schon lang mit höheren Geschwindigkeit gefahren ist, markii qof muddo badan xawaare saaid ah xawaare koreeyo oo ku kaxeynaya muddo badan. Zuerst zu den Standard und SAT عمل أو sicher los oder die Urkulia, was kann zu einer gefährlichen Unterstützung der eigenen Geschwindigkeit führen? Urkulia hay en maxay en ku gaami kartaa urkulia hay markii aad en si halis ah u qiyaasto in xawaara adiga marka adiga ku socotid maxay ku gaami kartaa urkulia hay urkulia fahren auf ein breit und gut ausgebaute Straßen markii aad ku socotid laan weyn oo si fiican loo dhisay uu kuleeyahay starks Motoren und Reifengeräusche in baawurta markay marayaan motorkooda si aad u qaylinayo iyo lugaha baawurta markay socdaan dhawaaqa lugahooda kasoo baxaya. Langs fahren mit hoher Geschwindigkeit, iyo adigoo muddo badan gaariga soo kaxeynaysa isla markaana xawaare saaid ah ku kaxeynaysa gaariga. Marka ayadana teebaa saxay marka ayadana waxaa saxay fahren auf einen breiten gut ausgebaute Straße markii aad ku socotid laami weyn isla markaana si fiican loo dhisay. Iyo sidoo kale tood langs fahren mit hoher Geschwindigkeit, inaa gaarigaaga adigoo muddo badan gaariga soo kaxeynaya isla markaana xawaara saaid ah ku kaxeynaya gaariga. Marka labadan bis ayaa ayadana ku hogaami karta in aad xawaarahaaga aad qiyaasi kari weysid. Su-aasha 36 wuxuu ku leeyahay wie müssen Sie sich verhalten hadda markaad saan oo kale xaaladan oo kale marka ku jirtid sidee u macaamilaysaa wuu ku leeyahay meeshan baawura baakiman inta sidoo kale baawura baakiman wuxuu ku leeyahay langsam fahren tartiib ayaa u kaxeynaya wuu ku leeyahay weil jederzeit Kinder zwischen den gepackten Fahrzeugen hervorlaufen können, wuxuu ku leeyahay tartiib u kaxeynaya maxaa yeelay caruur ayaa meelahan kasoo bixi karta wuu ku leeyahay yacni baawurtan baakiman agtooda kasoo bixi karta wuu ku leeyahay. Langsam fahren tartiib ayaa u kaxeynaya weil an einem der Fahrzeug eine Tür zur Fahrbahnseite geöffnet werden konnte, wuxuu ku leeyahay waxaa laga yaabaa uu ku leeyahay baawurtan meesha baakimanin inuu iridda dhankan usoo fula laga yaabaa uu ku leeyahay tartiib u kaxeynaya. Wuxuu ku leeyahay die allgemein höchstzulässige Geschwindigkeit ausnutzen weil keine Kontaktgefahr erkennbar ist, wuxuu ku leeyahay sidii caadiga lagugu talagalay xawaara lagu talagalay usocona uu ku leeyahay maadaama aan wax contact halis oo ah meeshan aan ka arkin caadi u soconaya uu ku leeyahay. Marka ayadana teebaa sax marka ayadana waxaa sax in aad gaariga tartiib u kaxaysid maadaama caruur ay meelahan kasoo bixi karto, iyo sidoo kale inaad gaariga tartiib u kaxaysid maxaa yeelay in dhankan iridda loo soo furi karo. Marka labadooda bis ayaa sax ah. Zuerst den toddobaad wuxuu ku leeyahay Sie nähern sich mit hoher Geschwindigkeit ein engen Linkskurve, waxaa kusoo dhawaatay uu ku leeyahay engen Kurve Linkskurve engen Linkskurve waxaa lahaa dhanka bixda ka imaanaya isla markaana cariiri ah kusoo dhawaatay uu ku leeyahay warum müssen Sie die Geschwindigkeitsbereitschaft für der Kurve vermindern, sababta aad xawaarahaaga intaadan kurvaha gaarin ka hor u yareynaysid maxay tahay uu ku leeyahay weil mein Fahrzeug sonst ins Schleudern geraten kann, wuxuu ku leeyahay in gaarigayga dhinaca loo tuuri karo rechts aus der Kurve rutschen kann, in dhanka midigta ah oo kurvaha oo lagu sabriiqi karo ama lagu taariixi karo. Links aus der Kurve rutschen kann, in sidoo kaleeto dhanka bidixda aan u taariixi karo yacni ama u sabriiqi karo qof baa si u yaqaano. Ayadana teebaa sax marka waxaa sax weil mein Fahrzeug sonst ins Schleudern geraten kann, sidoo kaleeto rechts aus der Kurve rutschen kann, iyo dhanka bidixda ah kurvaha in aad u taariixi kartid ama u sabriiqi kartid maxaa yeelay kurvaha wuxuu kaa jiraa links buu kaa jiraa soo marka dhankan midigta ah inaad u badatida laga yaabo ama u taariixda laga yaabo. Marka labadan bis ayaa ayadana sax
su-aasha 38 wuxuu ku leeyahay was ist für die Wahl der Geschwindigkeit beim Befahren von allein mit geringen Fahrbahnbreit von besonderes Bedeutung. wuxuu ku leeyahay maxaa ku dooranaysaa uu ku leeyahay xawaarahaaga markii aad maraysid meel alleen waxaa la meel geedaha ay ka buux geesihi ay ka baxaan lahaa oo laami ah markaad maraysid maxaa kula micno tahay ayuu ku leeyahay. qaybta koowaad wuxuu ku leeyahay die schnell wechselnde Lichtverhältnis erleichtern das Abschätzen der zeitlichen Abstände. wuxuu ku leeyahay iftiinka isbedelaya maxaa yeelay markuu geedo badan meesha ku yaalo oo iftiin ka soo baxaya meesha iftiinka indhahada waa isbedelaya maanta dhan sida caadiga ah ma ahaanayo. wuxuu kuu fududeynaya uu ku leeyahay in aad qiyaasid spaceka dhanka dhinacyada ah. wuxuu ku leeyahay das gleichzeitige Abschätzen des Seitenabstand zu den Bäumen und zum Gegenverkehr in aad dad baabuurta ka hor imaaneyso iyo sidoo kaleetood iyo seitenabstandigaaga u dhexeeya geedaha iyo baabuurta ka imaanaya in aad qiyaasi ka karweyso. sidoo kaleetood das gleichzeitige Abschätzen des Seitenabstand zu den Bäumen und Gegenverkehr in sidoo kaleetood in aad isla markii aad qiyaasi karto isla qiyaas gareyso spaceka u dhexeeya geedaha iyo baabuurta ka hor imaaneyso. sidoo kaleetood das bei einem Entgegenkommen der Breitfahrzeug unter Umständen in der halben übersehbaren Strecke angehalten werden muss. iyo sidoo kaleetood markii oo baabuur hortaada baabuur aada u weyn hortaada ka imaado kaasoo qariyo haaf dhan wadada markuu qariyo ee qasab kugu tahay in aad gaariga adiga istaajisid. marka ayadana maxay micno kula tahay uu ku leeyahay das gleichzeitige Abschätzen des Seitenabstands zu den Bäumen und zum Gegenverkehr. Hier sidoo kaleetood das bei einem Entgegenkommen der Breitfahrzeug unter Umständen in der halben übersehbaren Strecke angehalten werden muss. labadan bis ayaa saacino gaariweyn hortaada ka imaado oo wixii isku wada qariyo iyo sidoo kaleetood nalalka maxaa la in isla markii hal mar aad wada qiyaasi karweyso spaceka adiga geedaha idin dhexeeya iyo sidoo kaleetood adiga iyo baabuurta hortaada ka imaaneysa. su-aasha 39aad haddaan u gudubno oo isla markaana ah su-aasha ugu dambeyso wuxuu ku leeyahay videogan dar si aad uga jawaabtid su-aasha. dadkii videoga daawaday waa ujeedin markaa kuufaha kasoo baxday waxaa aragtay a ama bahal markaa meesha soo goynaya aragtay uu kuleeyahay iyo taaragta kale meesha maraya ujeeda. marka wuxuu kuleeyahay warum sollten Sie sich jetzt verzögern hadirtan maxaa gaarigaga u celinaysaa uu kuleeyahay. wuxuu kuleeyahay wegen Charakters cagafta meesha marayso wegen des Tieres xayawaanka meesha soo maraya iyo sidoo kaleetood wegen des Straßenverlauf iyo qaabka oo wadada u socdo dartiisa ayaan u celinaya uu kuleeyahay. marka teebaa sax ah marka waxaa sax xayawaanka markaan meesha maraya ayaa sax ah oo aad u celinaysid maxaa yeelay degdeg ayuu meesha kusoo galay waa sugaysaa ilaa oo ka gudbaya. marka taraktarka wadadiisa ayuu ku socdaa wadadana caadi ayay nadiif u tahay wax qalqal kaleetood ay ka jirto malahan. marka intaas kusoo gabagabeynaa maanta qaybteena koowaad 10-8 waa soo koobaya si dadka daawanaya videoga ay ugu noqoto video yar oo ay wax ku faa'iidaan ay haddana waqti yarna ay siin karaan. haddii waqtiga ugu dheeraado wax micnaa gooniya oo soo gaaray mala idinkan waxaa ka cajisaan daawashada aad daawanaysid videoga. marka 39kana kusoo ekeena laba qaybood kale oo noo dhiman waxaan isku dayaa labada qaybood ku xigtana in sida ugu dhaqsiyaha badan ayagana aan soo geli doono. haddii aad wax qalad ku aragtay ama aad wax la talin ah ay wadid ama aad wax kaleetood oo ka baxsan waxaan aad ku fikiraysid mar walba ay la soo xiriiri kartaa facebookayga ama comments hoos waa igu raabi kartaa. inta kulanka kale ka xiiso badan kulmi doono anigoo qaliiji ah fi amaanillah.